halkan oo ah wadada weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxa kormeer ku yimid agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo uu heliyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan madaxtooyada Soomaaliland ayaa qayb wadadan kamid ah kharashka ku baxaya bixinaysa agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile oo halkaas telefishinka bulshada kula hadlay ayaa waxa uu fariin u diray shirkadaha leydhka sidoo kale agaasimaha waxa uu sheegay qaabka wadadan loo dhisi doono saaka waxaan kormeer ugu soo baxnay wadadan cusub ee la ballaarinayo ee la casriyeynayo magaalada dhexmarta oo ah wadadii wadnaha waa wadada la doonayo inay maanta noqoto quruxdii iyo de functionkii magaalada inay qurxiso wadadan waa la ballaarinaya sidii dawladda hoose maalintii hore idin sheegtay wadadaas waxa laga dhigayaa wada afar haada oo ballaaran oo qurux badan oo gidaar ilaa gidaar la ballaarinayo waxa laga soo bilaabaya Green Plaza ilaa iyo dawladda hoose wajiga koowaad soconaya wajiyada dambana waa loo geli doonaa example horta imika wajigan hore Green Plaza ilaa iyo dawladda hoose soconaya waa wada afar haada waa wada leedhkeedii wadata waa wada ishaarooyinkeedii iyo leedhkeedii casaa wadata waa wada wadata meelihii kala qaybinaya laymanka iyo rinjigeedii marka biyo mareennadii loo sameeyay marka quruxda caynkaas ayaa la sameeyaa wadadan dhismeeda waxa iska kaashanaya xafiiska madaxtooyada iyo dawladda hoose oo kharashka iyo shaqadaba wada qaybsanaya runtii maanta waxaan u nimid iyadoo wadadii imika bilow ay tahay oo meel fiican marayso waxa si gaar ah ugu nimid wadadii magaalada dhex maraysay waxa meel kasta buuxiyay birihii leedhka iyo xadhkii leedhka iyo tiirarkii leedhka oo aad moodo in si habqana oo aan qurux badnayn wadadu u degayeen waxa maanta aan u sheegaynaa shirkadaha leedhka in ay birahooda iyo wixii xadhkay ay leeyihiin wadadaasi ay ka qaataan oo ay kala wareegaan wadadan waxa la dhisayaa gidaar ilaa gidaar wax bir ah oo taagnaan karta looguma talagelin fadlan waxaan xusuusinayaa inay ka qaataan gaar ahaan waxaan la hadlayaa labada shirkadood ee ah Somtech iyo Sompower oo iyagu 99% leh wixii bire meesha ka taagan wixii laga bilaabo labada maalmood ee soo socda waa inay birahaasi kala wareegaan oo ay ka qaadaan meesha taas waa mid dhammaan dadka boorarka xayeysiiska ku dhajistay wadada laga soo bilaabo Green Plaza ilaa dawladda hoose waa in laga qaadaa oo laga wareejiyaa oo wadadaasi aan meel laba lagu arag wixii ka dambeeya labada maalmood ee soo socda maanta waxa weeyaan waa sabti axad iyo isniin wixii ka dambeeya wixii bira meesha ka taagan iyo wixii board ka taagan iyo wixii kolayar ka taagan iyo wixii gooladaha ka taagan xayeysiis iyo wixii sandaqad yar meesha ka taagan cagaftaasi way jiiraysaa la socda waxa weeyaan wadadii waa inay dhaqaaqdaa waa inay bilaabataa waa digniintii ugu dambeysay shirkadaha leedhka laba goor hore loo qoray waraaqo lagu wargelinayo inay alaabadaasi iyo birahooda iyo xadhkooda ka qaataan waa ogeysiiskii saddexaad oo ah ogeysiiskii ugu dambeeyay fadlan ka qaata wadada quruxdeeda soo baxaysa bilicdeeda soo baxaysa horumarkeeda soo baxaya wanaageeda soo baxaya waa in laga qaada waxaan ugu celcelinayaa taasi waa shaqo weyn oo soo socota oo hadhow aan doonayno inay maaragtay runtii wadadaasi markay dhisanto waxaan filaynaa inay si aad u soo celin doonto bilicdii iyo horumarkii iyo isu socodkii gaadiidka dhammaan wax kasta oo wadadaasi soo galaya oo ka hor yimaada waa laga qaadayaa meesha kow wali waxa laga bilaabaya si ay tusaale u noqoto kaabadaha waaweyn ee madaxtooyada hor yaala iyaga laftigooda meesha waa laga qaadaya waa laga riixaya kol haddii xafiiskii madaxtooyada kaabadeedii iyo darbigeedii laga qaadayo waxa amaran ku bixinaynaa in shirkadaha leedhka iyo wixii kale ee wadadaas soo galaana ay ka qaadaan meesha waa yani shaqadii baa la doonaya in halkaas sii socoto agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan oo goobta ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay ballaarinta wadadani warku wuxuu ku eegyahay inta agaasimaha guud ee madaxtooyadu idin sheegay yaa kaftan loo qaadanin hadalka la idin sheegay waa digniin ku socota cid kasta oo wadada hareeraha ka soo gashay ha ahaato shirkadaha leydhka ha ahaato shirkadaha xayeysiisyada ha ahaato cid kasta oo wadada ku soo xadgudubtay waa digniin yaan kaftan loo qaadanin berrinta ka maalin yaan laga calaacalin waayo in fara badan aynu lahayn maxay dawladdu u sameyn weyday wadooyin maxaa loo qurxin waayay maxaa sidan haddii dawladdu u soo jeesatay waxaa laga rabaa cid kasta oo magaaladan ku nool ama hanti ku leh jidka imika laga shaqaynayo wajigan koowaad inay baneeyaan inay sii baneeyaan u fududeeyaan dadka ka shaqaynaya
waa digniin iyaan la yaraysanin cabashadii ayay ka jawaabaysaa dawladdu ay dadweynuhu ka cabanayeen waddooyinka waa laga shaqaynayaa bilicda magaalada kor loo qaadayaa sidaa ay tahay ha loo fuliyo hadhow yaan la calaacalin dawlad baana jiidhay iyo cagaf baana jiidhay bir iyo meeshii ay ku soo hagaagtay muddada intaa ka horraysa laga qaadi waayo waa la jiidhayaa waddadana waa la banaynayaa deer hadday ku soo hagaagto waa la duminayaa sidaa ha loo ogaado luqmaan maxamed faarax bulsho TV hargeysa